Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. YouTube channelka naga fiirsanaysaan waa Bedel Films and Vlogs. Maanta barnaamij xiiso badan ayaa idiin wadnaa kana duwan barnaamijyadeennii hore. Saan filayana barnaamijkan aad iyo aad ayaa uga wada heli doontaan. Fadlan haddii tahay markii koowaad soo booqato channelkeena, subscribe saar, fiidiyoona like saar si ay noogu noqoto dhiirigelin. Kana mid noqo asxaabta ku xiran bartaan. Maanta waxaa ka hadlaynaa madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika ee Mugabe. Orahyadiisii iyo xigmadihiisii ugu qosolka badnaa. Haddii aad aragto lamaane Afrikaan ah oo xaafadda horteeda ku leersanaya, ha u malaynin jacayl ee korontadii ayaa ka tagtay. 2 haddiiba aad aragto nin xaaskiisa markay degayso daaqadda ka furaya, kama aha jacayl ee gaariga cusub ama gabadha. 3 haddii la xiro meheradaha lagu iibiyo make-upka dumarka ay isku qurxiyaan, caruur badan ayaan hooyooyinkood aqoonsadeen. 4 waalidka Afrikaanku waa kuwa inta ay ku dhangadeeyaan ama uleeyaan haddana ku weydiinaya sababta aad la ooyeyso. 5 aynu runta isu sheegnay, marka la leeyahay nin kasta oo guul gaaray gabar ayaa ka dambaysa, ma aha tan lala sheekaysto ama la shukaansado ee waa hooyadii macaan. 6 wiilasha Afrikaanku jacaylka waxba kama yaqaanaan. Mid bay xaaskiisu barkin ku soo tuuraysaa, markaasuu mindi tuurayaa. 7 Afrika waa meesha qura oo wiil san weyn gabar ku oranayo la'aanta ma neefsan karo. 8 dadka kubadda daawada waa dad qosol ah. Waxaad arkaysaa mid leh ciyaartow baanu ku soo iibsanay intaasoo milyan, isagoo xitaa wuxuu ku casheeyo aanan haysan. 9 haddii daanyeeradu maalqabeen ahaan lahaayeen, waxaa la arki lahaa gabdho badan oo duurjoog ah. 10 gabar kasta waxay leedahay 2 nin oo ay la sheekaysato. midi waa kan ay jeceshahay, midna waa kaashiyarkeeda ama ATM-keeda ay lacagta ka shubato. 11 gabadha aad u dirto $3 ee haddana isla markiiba music call ama kuu soo baaqaysa guurso, waa gabar taqaana dhaqaalaynta lacagta. 12 dhibaatooyinka Afrikaanka waxaa ka mid ah haddii la yiraahdo qofna dibadda uma soo bixi karo ee waa bandow, qof walba waa uu soo baxayaa balse uu u eego in ay cidi soo baxday. 13 waa iska dhaafay daawashada aflaamta Afrikaanku matalaan. Markaan arkay gabar Afrikaan ah oo ninkeeda cuntada sun ugu daraysa, haddana dhadhaminaysa bal inuu sun leeyahay. 14 haddii aad guursato gabar saaxiib nagala ah Facebooka, dhammaanteen waxaa noo tahay seedi. 15 dalalka faqiirka ahi waa kuwa ay ugu dhaadheer yihiin heesahooda qaranku, waayo waxay kuu sharxayaan dhibaatooyinka haysta. 16 qofka dhiirigeliyahay haddaad ku tiraahdo sideen ku guulaysan karaa, waxa uu ku oranayaa ugu horeyn naftaada hel. talow walaal xagee ku dhuntay naftayda ama ku dhuumanayay. 17 markay Afrikaanku lacag yeeshaan, waxay caafimaad ahaan u aadaan Jarmalka, waxa ay lacagta dhigtaan Switzerland, waxa ay dalxiis u tagaan Canada. haddii ay dhintaanna waxa ay doonayaan in dhulkooda hooyo lagu aaso. Afrika ma quuraa markaas? Waa su'aal isweydiin mudan. 18 Afrika markaad joogto uma baahnid inaad saacadda jaraskeeda ku xirato si ay kuu toosiso, mushkiladahaaga ayaaba ku kicinaya. Asxaabay, haddii aad ka wada heshaan xogtan aan nii soo gudbiyey iyo barnaamijkan cusub, nagula wadaag kommentiga. waxaan nii soo samayn doonaa barnaamijkan oo kale. intaan neega tegin waxaan leeyahay hal kelmad: samee waxaa samayn lahayd berri maanta, samee waxaa samayn lahayd maanta isla markaas ama isla waqtigaas. Okay, bye bye, I love you guys.